waa maxay kalsoonida naftu? kalsoonida naftu waa rumaysnaanta aad aaminsantahay inaad wax u qaban karto si sax ah ama aad xaaladu la tacaali karto si sax ah. haddaba xaggee ka timaadaa kalsoonida naftu? haddii aad bilaa kalsoonid tahay xaqiiq ahaan waxaad lumin doontaa ama dayici doontaa fursado badan oo aad heli karto, sababtoo ah waxaad ka baqan doontaa inaad ku dhacdo waxaanad hubin inaad samayn karto iyo in kale. kalsoonida nafta weligeed lama dhaxlo, waa wax la barto. marnaba haysoo dhan inaad kalsooni darrada aad ka dhaxashay waalidka. kalsoonidu maaha dabeecad guud, waxaad leedahay heerar kala duwan oo kalsooniya, taasoo ku xidhan howlaha kala duwan ee aad qabato. tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad ku kalsoon tahay awoodda aad gaari ku kaxayn karto, balse aad ka baqato inaad dad soo hor istaagto oo aad hadal u jeediso. kalsoonida naftu maaha mid joogta ah, mar way fiicnaataa marna way xumaataa, iyadoo marba ku xidhan xaaladda iyo waayaha aad ku sugan tahay nolosha. haddii aynu ogaanay waxa ay kalsoonida naftu tahay, halkay ka soo jeedo iyo xaqiiqooyin ku saabsan iyada, aynu u galna 9 tallaabo oo si cajiiba aad ugu kordhin karto kalsoonida aad ka qabto naftaada. tallaabada koowaad, si togan oo positive ah ula hadal naftaada. sida aad naftaada ula hadashaa isla markaana aad u malaysaa waxay saameyn aad u ballaaran ku leedahay kalsoonida naftaada. haddii aad naftaada ugu sheekayso inaanad fiicnayn isla markaana aad hoos u dhigto oo aad liido, waxaa hubaal ah inaad yeelan doonto kalsooni aad u hooseysa oo aad aamini doonto hadalkaaga. si aad kalsoonida naftaada sare ugu qaado, ka fogow inaad naftaada kula hadasho hadalla taban oo negative ah. badanaa dhoolacadee, qosol, kuna hareere naftaada dad faraxsan isla markaana positive ah. taasi waxay kuu saamaxaysaa in dareenkaaga uu ka wacnaado sidii hore, isla markaana dadka aad la joogtaa waxay xiisayn doonaan la joogitaankaaga iyo wehelkaaga. tallaabada labaad, ha barbar dhigin naftaada dadka kale. dadka badankoodu waxay sameeyaan caado xun oo ah inay barbar dhigaan naftooda dadka kale, iyagoo ka eegaya dhinacyo badan sida waxa ay haystaan, hantidooda, quruxdooda, farxadda ay ku nool yihiin, nolol maalmeedkooda iyo qaar kaloo badan. dhibaatada ay arrintani leedahay ayaa ah in mid kasta oo ka mid a saaxiibada ama qoyskaaga ama dadka aad taqaanaa ay leeyihiin wax u gaara oo aanad lahayn. haddii aad joogtaysay inaad barbar dhigto naftaada qof kasta oo aad la kulanto, waxaad qiimo tirmi doonta naftaada, taasi oo sababi karta in kalsoonida naftaadu dhulka gasho. haddaba si aad u joojiso isbarbardhigan xun, samee arrimahan soo socda. 1. ku qanac waxa uu Alle subxaanahu wa tacaala ku siiyey, ogowna in haddii qof haysto waxaanad haysan ayna taasi ka dhignayn inuu qofkaasi kaa fiican yahay. 2. fahan in haddii qof kaa taajirsan yahay, kaa caansan yahay ama uu xataa kaa caqli badan yahay, inaadna aad leedahay wax badan oo aanu isagu lahayn. 3. si fiican u baro naftaada, aqbalna sida aad tahay. tallaabada 3aad, qurxi muuqaalkaaga, si fiicanna u labiso. tani waxay u muuqataa wax iska cad, balse waxa cajiiba sida maydhashada, xiirashada iyo labiska fiican ay u saameeyaan kordhinta kalsoonida naftaada iyo sawirka aad ka haysato naftaada. tallaabada 4aad, samee xarakaad iyo ficil, take action. ficil la'aantu waxay tarmisaa shakiga iyo cabsida, ficilkuna wuxuu tarmiyaa kalsoonida iyo dhiiranaanta. waxaad ka soo qaadaa inaanad ku kalsoonayn awoodda aad u leedahay ciyaaridda nooc ka mid ah isboortiga. sida ugu fiican ee aad ku baran kartaa waa inaad maalin walba samayso tababar oo aad ku celceliso ilaa aad ka baranayso sida saxda ah loo ciyaaro. dhammaan xirfadaha kalena waa sidan oo kale. haddii aad guriga fadhido oo aad ka fikirto wax ka sii dara mooye waxba hagaagi maayaan, inaad xarakaad iyo ficil samaysaa waxay sare u qaadaa kalsoonida aad ka qabto naftaada. tallaabada 5aad, diyaargarow samee. furaha ugu muhiimsan ee lagu gaadho guushu waa kalsoonida nafta. furaha ugu muhiimsan ee lagu helo kalsoonida naftuna waa diyaargarowga. aad bay u adag tahay inaad ku kalsoonaato naftaada haddii aad aaminsan tahay inaanad shay si fiican u qaban karin. karbaash oo ka adkow dareenka adigoo diyaarinaya naftaada inta ugu badan ee suurtagal ah. ka fikir imika imtixaan lagaa qaadayo. haddii aanad wax akhris badan sii samayn, kalsooni badan ka haysan maysid awooddaada aad imtixaanka uga shaqayn karto si fiican. balse haddii aad akhrido oo aad u diyaargarowdo, waxaad yeelanaysaa kalsooni aad u badan. haddaba imika uga fikir noloshaada inay tahay imtixaan aad gelayso oo kale, diyaarina naftaada. tallaabada 6aad, si qunyar ama tartiiba u hadal. waa wax aad u fudud, lagana yaabo inaad la yaabto, balse waxay saameyn aad u weyn ku leedahay sida dadku ku arkaan. dadka awoodda leh isla markaana wax xukumaa si tartiiba ayay u hadlaan. tani waxay ku tusaysaa kalsooni. qofka aaminsan in aanu u qalmin in la dhageysto, hore ayuu hadalka u dedejiyaa, sababtoo ah iskuma kalsoona. isku day inaad samayso sidaa dhowr jeer, waxaad dareemi doontaa kalsooni aad u badan. dabcan ha ku sii talax tegin, laakiin ka fogo inaad si degdeg u hadasho. tallaabada 7aad, hor istaag muraayadda oo isku eeg adoo dhoola caddaynaya. maalin kasta muddo kooban isku eeg muraayadda adoo dhoola caddaynaya oo faraxsan.
haddii aad samayso ficilkan jidhkaagu wuxuu soo deynayaa dheecaamo ama chemicals kuwaasoo sabab u noqonaya inaad ku faraxsanaato naftaada kalsooni badan aad yeelato sidoo kale waxay kaa caawinaysaa inaad ku faraxsanaato muuqaalkaaga aanad aqbasho kuna raali noqoto sidaad u eg tahay tallaabada 8aad deji hadafyo yaryar kuna guulayso dadku badanaa waxay dejiyaan hadafyo aan la gaari karin markay ku fashilmaanna way niyad jabaan xagga aad ka samaynayso dejiso hadafyo yaryar oo aad gaari karto isla markaana ku guulayso waxaad dareemi doontaa kalsooni inta badan aad ku guulaysato hadafyada yaryar waxay badanaysaa kalsoonida naftaada tallaabada 9aad samee jimicsi joogto ah jimicsiga joogtada ah wuxuu xoojiyaa wadnahaaga iyo lafahaaga wuxuu hoos u dhigaa cudurrada daba dheeraada wuxuu kaantaraalaa kororka miisaankaaga sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa dareemada walaaca iyo murugada sidaas si lamida wuxuu si heer sare ah u kordhiyaa kalsoonida naftaada